بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم halkaan joogno halkii laga dhisay dugsiga qarmaji laga dhisay koonihiisii bari ayaan taaganahay koonihiisa kalena waxa weeye waa geeska waqooyi weey labada kale koonna waxay naga xigaan galbeed bay naga xigaan hadii ilaahay waa 100 iyo 100 isoo labada 100 isku weerka weeyaan inta aan ugu talagalay in dugsiga qarmaji laga dhiso aad iyo aadna waan ugu mahadnaqnaa wasaaradda iyo cidii hawsha fuliyeysay aad baan ugu mahadnaqnaa waxaan joognaa tuulada qarmaji oo ka tirsan Dar es Salaam isku maanta la bilaabayo oo injineerkina joogo oo shirkadii qaydar ee dhisayna waa tan taagan maanta ay bilaabaysaa insha Allah biidnillaahi kariim aad baan ugu faraxsanahay haddaan nahay wasaaradda waxbarashada iskuulka biyashiinuhu 3 kiiloomitir bay soo jiraan qiyaas ahaan ولكن عروتو halkan caruurteeda waxbarasho ma haysanin ilaahay baa mahad leh marka ilaahay waxaan ugu mahadnaynaa ilaaha ina siiyay garanaysaa dhulka qolada bixisay deegaankana aad baan ugu mahadnaqayaa gudoomiyaha degmada oo haddaan dhulka la helayn dhismaha iskuulka lama heleen marka kulli hadalku waa goor gaaban hadalkeedna gaaban waxaan leenahay iskuulka maanta la bilaabayaa insha Allah iskuulkii laga faa'iido Allah ka dhigo caruurteena ku aflaxdo inaga miisaanka xasanaadka la diro wasiirka wasaaradda waxbarashada waxaan leenahay ilaahay ha ka jisaysiyo waxaan ahay odaga magaalada qarmaji maanta oo iskuulkii naloo bilaabayo waan ugu mahadnaqaynaa xukuumadda iyo wasiirka waxbarashada iyo gudoomiyaha degmada ee gobolka waxbarashada iyo haddii la xukumayo dhammaanba ciddii ka hawlgashay waanan u baahnayn iskuulkaas oo in badan bay carruurteedu bilaa iskuul ahayd waan ugu mahadnaqaynaa koley maanta halkan waxaan u joognaa waa in la bilaabo dhismaha dugsi deegaanka qarmaji oo ka kooban 2 fasal iyo ofiskii kaasoo dadka deegaankuna ay baahi aad u weyn u qabaan waxayna ka mid tahay ujeedooyinkii siyaasadda wasaaradda waxbarashada ee ahayd fidinta waxbarashada halkan aynu taaganahayna waa deegaankaas oo baahi weyn u qabay in ay waxbarasho helaan marka insha Allah deegaanka qarmaji ninkii dhulka bixiyayna waxa la yiraahdaa Cabdi Jaamac waana ka goob joog isna uu sheegi doonaa inuu isagu dhulka ku tabarucay bixiyayna سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم إلهي بام حظه halkan isku keenay runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay siday ka dhawaajisay dhiyooga degmadu aamina waxa way runtii caruurta halkan intay ka tagaysay biyashinaha runtii dib bay qabeen ilaahay baa mahad leh kadibna waxay aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa dawladda Soomaaliland gaar ahaan wasaaradda waxbarashada oo runtii ma taqaana waa gurmad aynu la karnaa qaran weey caruurta yaryar ma taqaana da'daas oo halkaa way ku fogtahay waaba meel laga lugayn karo runtii maaha waxaan aad iyo aad jecel halkan uga mahadnaqno dadka bixiyay dhulkan ilaahay inuu miisaanka xasanaadka ugu daro waa meel fiican runtii oo iskuulka intii doon laga dhisi karo imika sidoo sheegay gudoomiyaha waxbarashada gobolka waa 2 fasal iyo office laakiin waxaan rajaynayaa haduu ilaahay extension in yaani balaarintiisu ama kordhintiisu ay socoto dhul fiican oo haystaa waxaan u baahan doontaa kaliya halkan in geedaha laga jafo si garoomada iyo ay caruurtu ku ciyaaraysay taana waxa ku dhiirigelinaynaa wax walba laga sugi maayo xagga dawladda inay sabaabusho deegaanku sabaabulo oo markii iskuulkii la taago garoomadiina waxa oo deeyo oo naqaan sida oo loo gooyay in caruurtu meesha ay ku ciyaaraysay hadda hablo halka ku ciyaarayeen halkay nimadu ku ciyaarayeen ilaahayna waxa ka rajaynaynaa annaguna ka xafiis imtixaan ahaan inuu ilaahay caruurta u barakeeyo annagana ilaahay nagaarsiyo imtixaankii fasalka 8aad ilaahay idinkii halka kaga qaadno maanta qaranko dhan runtii guul bay u tahay waana loo baahayo waxbarashadu waa tabeel lagu gaaro laakiin mid baan idinku dardaarmaya dadka deegaanka runtii waxa weeyii waxaad kaga baxaysaa maanta idinku kaasoo waxaad ku daba dhamaateen sidaad iyaga u soo korinayseen oo xoolo baadiyo ugu hayseen adduunyaduna maanta waxa weeye taasoo way isbedesho waxa laga yaabaa in bari dhow baadiyaba la waayo marka in caruurta tiknoolajiyadii halkaas ka bilaabmaysaa inay la jaan qaadaan oo koowaad in diinta islaamka ilaa waxa weeye iskuulada waa lagu dhigaa dadka qaar baa haysta iskuulka inaan iskuuladu waxay leeyihiin
manhajkoogu ku jira haseedana carruurta marka hore quraanka kulle way dhigan jirtay saan filayo carruurta quraanka way dhigtaan inay waxa fiican carruurta quraanka inay ku soo horeyso markay quraanka si fiican u soo dhigtaan iskuulka la keeno marka ilmuhu gelina wuxuu dhigan karaa iskuulka gelina wuxuu dhigan karaa quraanka marka inaan wuxuu noqon wax ma taqaan marka malcaamadda iyo iskuulku way iskabayaan